kulanti wanaagsan daawadayaal halkan warbaahinta Al-Cadaala News ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay gudaha dalka qodobada ugu waaweyn ee daawan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo khasaaro ka dhashay duqeyn lala eegtay koob uu shil uga socday saraakiil sare oo ka tirsan Al-Shabaab. Haddaba waxaan eegi doonaa faahfaahinadii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi. Qodobada kale waxaa ka mid ah mucaaradka Soomaaliya oo cadaadis xooggan kala kulmaya beesha caalamka si ay u aqbalaan koogasha uu fadhiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Haddaba waxaan oogi doonaa go'aanka beesha caalamka ka soo baxay ee cadaadiska weyn lagu saarayo xubnaha mucaaradka. Qodobada kale waxaa ka mid ah Itoobiya oo ciidankeeda ku wargelisay go'aan cusub oo la xiriira xiisadda Soomaaliya. Haddaba muxuu yahay go'aankani cusub waan eegi doonaa. qodobada kale waxaa ka mid ah maxaa ka jira khilaafka culus ee la sheegay inuu ka dhex qarxay madaxda sare ee maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisa. waa maxay waxyaabaha ay isku hayaan, macluumaadkii ugu dambeeyay iyo xogii ugu dambeeyay ee khilaafka u dhaxeeya Maxamuud Siidaadan iyo Axmed Madoobe ayaynu eegi doonaa. qodobadan iyo qodobadii kale nagu soo kordha ayaa daawaday qaybtan ku daawan doontaa. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo subscribe saaro channelkeena. haddii aad horey nala joogteen waad ku mahadsantahay like saar muuqaalka mahadsanid. waa hagaag daawadayaal aan ku bilaabo faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn xooggan oo diyaarado dagaal ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Hirshabelle, taasoo lala beegsaday saraakiil sare oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. duqeyntan oo ahayd bartilmaameed ayaa ka dhacday deegaan lagu magacaabo Haanooley oo hoos yimaada degmada Raagaceele, iyadoo khasaare lagu gaarsiiyay Al-Shabaab. wararka ayaa ku waramaya in duqeyntani ay si gaar ah loogu beegsaday goob ay ku shirayeen xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab, islamarkaana ay soo gaartay waxyeelo xooggan, balse ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray. ila dadka deegaanka ah ayaa waxa ay ku warameen inay maqleen jugta gandaalada lala helay goobtaasi, ayna dareemeen cabsi xooggan sida ay hadalku dhigeen. ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dhanka Al-Shabaab oo ku aadan weerarkaasi cirka ah ee ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, islamarkaana ay fuliyeen saaxiibada taageera dowladda Soomaaliya. xaaladda ayaa haatan weli kacsan, waxaana dhaqdhaqaaqyo culus laga dareemayaa aagga Raagaceele oo ah halka lagu beegsaday Al-Shabaab. weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii u dambeeyay ciidamada dowladda ay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka soconaya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, kuwaasi oo guulo laga sugayay. Soomaaliya ayaa waxay weli ay ku jirtaa marxalad dagaal oo daba dheeraaday, iyadoo ay sidoo kale ka qayb qaadanayaan dadka deegaanka si markaa Al-Shabaab lagu xoreeyo deegaanada ay ka joogaan koonfurta iyo bartamaha dalka. dhanka kalena mucaaradka Soomaaliya ayaa wajahaya cadaadis caalami ah oo sii kordhaya kadib markii midowga Yurub, qaramada midoobay iyo sidoo kale boqortooyada Ingiriiskuba ay dhammaantood ay soo dhaweeyeen casuumaadda uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u fidiyay xubnaha mucaaradka ee ku aadan in la isugu yimaado wadahadallo siyaasadeed. hadalka beesha caalamka ayaa yimid kadib markii filla Soomaaliya ay hogaamiyaasha mucaaradka ku mideysan golaha mustaqbalka ku casuuntay kulan dhici doona 10 bishan May, kaas oo madaxtooyadu ay sheegtay in looga hadli doono doorashooyinka dowlad dhiska, midnimada qaranka iyo jihada siyaasadeed ee Soomaaliya. mucaaradka ayaa hore u sheegay inaysan madaxweyne xasan sheekh u aqoonsan doonin madaxweyne wixii ka dambeeya 15 bishan May, iyaga oo ku doodaya in maalintaasi uu ku egyahay muddaxileedka rasmiga ah ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahaa 4 sano. xulafada madaxweynaha ayaa dhankooda ku doodaya in isbedeladii dastuuriga ahaa ee uu dhowaan ansixiyay baarlamaanka ee hay-adaha federaalku u ogolaanayaan muddaxileed 5 sano ah. jawaabta isku midka ah ee ka timid saaxiibada caalamiga ah ayaa kordhinaysa cadaadiska saaran mucaaradka, iyada oo lagu riixayo inay ka qayb galaan wadahadallada xilli ay weli ay ku eedeynayaan madaxweyne xasan sheekh inuu doonayo muddo kordhin aan ku dhisnayn heshiis siyaasadeed oo ballaaran. Francesca Di Mauro oo ah safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa sheegtay in midowga Yurub uu soo dhaweynayo casuumaadda madaxweyne xasan sheekh ee loo fidiyay golaha mustaqbalka. danta dhammaan Soomaalida awgeed waxaan rajaynaynaa jawaab wanaagsan iyo in lagu heshiin karo wado wax dhisaysa oo hore loogu socdo, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ayay ku qortay barteeda Twitter-ka. midowga Yurub wuxuu diyaar u yahay inuu taageero dadaaladaasi Soomaaliya ayay hadalkeeda sii raacisay. howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya
ayaa isna soo dhoweeyey casuumaadda dowladda federaalka isagoo ku tilmaamay kulan lagu raadinayo wado wadajir ah oo laga gudbo arrimaha qaran ee muhiimka ah. Howlgalka ayaa sidoo kale hadalkiisa ku sii daray in qaramada midoobay iyada oo la shaqaynaysa saaxiibada kale ay diyaar u tahay taageeridda dadaalada Soomaalida ee lagu xalinayo arrimaha weli taagan. Safaradda Britain ee Muqdisho ayaa iyaduna soo saartay hadal gaar ah oo uu jeediyey safiirka UK ee Soomaaliya oo sidoo kale lagu soo dhoweeyey casuumaadda dowladda. Xilligan xasaasiga ah, wadahadalladu waa habka ugu wanaagsan ee lagu wajihi karayo mudnaanta qaranka, lagu xoojin karayo xasilloonida, laguna taageeri karo danaha dhammaan Soomaalida ayuu yiri Kin oo ah safiirka boqortooyada Ingiriiska ee Muqdisho. Imtixaanka horyaalla mucaaradka ayaa ah in saddexda hadal aysan si toos ah u taageerin mowqifka dowladda ee mucaaradka muddaxileedka hase yeeshee waxay xoojiyeen fariinta caalamiga ah in Soomaaliya ay xiisad siyaasadeed ku wajahdo wadahadal halkii ay ka geli lahayd iska horimaad siyaasadeed amaba mid amni. Farintani ayaa hadda golaha mustaqbalka waxay gelisay imtixaan siyaasadeed. Qoraalkii mucaaradka ee 2 May ayaana lagu diiday waxa ay ku tilmaameen doorasho magacaabis ku dhisan, iyagoo madaxweyne Xasan Sheikh ku eedeeyay inuu doonayo inuu xafiiska iska sii joogo kadib markii uu dhamaado muddaxileedkiisa sharciyeed. Goluhu wuxuu sheegay in Xasan Sheikh Maxamuud kadib 15 May ay u aqoonsan doonaan muwaadin caadi ah oo la mid ah dadka intiisa kale. Mucaaradka ayaa sidoo kale ballan qaaday inay hogaamin doonaan halgan nabadeed, abaabul bulsho iyo sidoo kale wadatashi qaran si looga hortago waxa ay ku tilmaameen firaaq dastuuri ah loona helo dowlad sharciyad leh. Hase yeeshee, qoraalka mucaaradka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay muddo 7 gudihiisa shacabka Soomaaliyeed kula wadaagi doonaan hannaan doorasho. Ballanqaadkaasi ayaana dhaliyay su'aalo ku saabsan sababta qorshe doorasho oo faahfaahsan aan weli loo soo bandhigin kadib sanado badan oo muran siyaasadeed uu jiray. Mucaaradka ayaa diidan qorshaha Xasan Sheikh ee ku saabsan doorashooyin toos ah, iyaga oo sheegaya in hannaankaasi uusan ku dhisnayn heshiis siyaasadeed isla markaana uu awood badan siinayo villa Soomaaliya. Si kastaba noqotee, jawaabta isku midka ah ee ka timid saaxiibada caalamiga ah ayaa kordhinaysa cadaadiska saaran mucaaradka, iyada oo lagu riixayo inay ka qayb galaan wadahadalka xilli ay weli ku eedeynayaan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inuu doonayo muddo kordhin aan ku dhisnayn heshiis siyaasadeed oo ballaaran. Gudahaan daawadayaal, wanaagga intaa wararkii ugu dambeeyay gudaha dalka. Haddii aad nala soo gaartay ilaa dhamaadkood, ku mahadsan tahay. Laagtan muuqaalka mahadsanid.